بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysaa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhowaada youtube-keenan badiya bari channel. wararka caawaan idin hayno waxa ugu dooroon wararka ka imaanaya dhanka iyo Mareykanka, warar la xidhiidha siyaasadda iyo amniga caalamka, Elon Musk oo la saadaalinayo inuu noqdo trilyaneerka adduunka, iyo wararka Yurub iyo wararka guud ahaan Afrika oo kuwa Soomaalida ku jiraan. haddaan idinku horeeyo wararka Mareykanka, dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa sii xoojinaya wada shaqaynta la dagaalanka kooxaha argagixisada. ciidamada Mareykanka ayaa diiradda saaray wiiqidda hoggaanka ICIC iyagoo howlgallo amni ka wada gudaha Soomaaliya. sidoo kale Elon Musk ayaa la saadaalinayaa inuu sanadkan noqdo trilyaneerkii ugu horreeyay adduunka hantidiisa oo hadda lagu qiyaasay 842 bilyan oo dollar ayaa la filayaa inay gaadho trilyan bisha Juun ama Julaay. Musk ayaa hadda ka hanti badan dalal dhowr ah marka la isku daro, waxaana la saadaalinayaa inay hantidiisu dhaafto dhaqaalaha Sacuudiga dhammaadka 2026. sidoo kale wararka ka imaanaya Yurub, hogaamiyayaal Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels, iyagoo ka wada hadlay xoojinta nabadda, colaadda iyo dib u heshiisiinta. sidoo kale hogaamiyayaasha dalalka Masar iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka, gaar ahaan xaaladda Gaza iyo xiriirka labada dal. sidoo kale magaalada Moscow, janaraal sare oo ka tirsan ciidamada Ruushka, ku-xigeenka taliyaha GRU Vladimir Elagas ayaa lagu weeraray dhisme uu ka degan yahay oo ku yaala bannaanka waqooyi galbeed ee caasimadda. janaraalka ayaa si degdeg ah cisbitaal loogu qaaday, waxaana weli la sugayaa faahfaahin ku saabsan xaaladiisa caafimaad. weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid ah tilmaameedyadii ugu waaweynaa ee saraakiil Ruush ah tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine lagu bartilmaameedsado. sidoo kale wararka ka imaanaya Afrika, dalka Nigeria, kooxo hubeysan ayaa weeraro ka geystay deegaano kala duwan, taasoo keentay dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay dad rayid ah. sidoo kale wararka ka imaanaya Soomaaliya, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacmay dagaal dhex maray ciidamada ammaanka iyo kooxo hubeysan oo ka dhacay magaalada Baydhabo. sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar ayaa sheegay in nabadda ka jirta deegaanka ay inta badan ka timid dadaal gudaha ah, isagoo xusay in maanta aysan jirin degmooyin ay dhibaato amni ka jirto. sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu wareejiyey guri ay u dhiseen dad isxilqaamay. dadka dhismaha sameeyey ayaa sheegay in Farmaajo intii uu xilka hayay si wanaagsan u ilaaliyay hantida ummadda, isla markaana uu muujiyey daacadnimo iyo mas'uuliyad qaran. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaadhay magaalada Doha ee dalka Qatar, isagoo ku sugan safar rasmi ah oo la xidhiidha diblomaasiyadeed iyo iskaashi gobolka ah. dhanka kale wararka ka imaanaya Somaliland, horyaalka kubadda cagta ee Somaliland oo soo jiitay taageerayaasha Berbera. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland ayaa magaalada Berbera ku qabtay horyaalka Jamhuuriyadda Somaliland, kaasoo soo jiitay xiisaha taageerayaasha. ciyaartu waxay ahayd mid xiisad leh, iyadoo garoonku ay ka muuqatay taageero xooggan. kooxihii guuleystay kuwa kaalinta labaad ayaa la guddoonsiinayaa lacag iyo hadiyad, taasoo muujinaysa dhiirigelinta horumarinta kubadda cagta Somaliland. gudoomiyaha ayaa xusay in kooxaha dhammaadka soo gaadhay ay heli doonaan hadiyado kala duwan oo ay ku faraxsan yihiin. sidoo kale wiil yaroo laga wareysanayay maanta arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland say wallaahi ayaa dhaama siyaasiyiinta Soomaaliya jooga. baleer daawada siduu sheegayo nin gurigiisii gubanaya oo guri barwaaqa
wala igu soo biir bal daawada siduu u hadlayo Soomaaliya dowladeeda ani haddaan ahaan lahay Somaliland ma fiirin lahayn. And here's why the point aan u fiirin lahayn. Kayaasaa gurigaaga ka dhex furan. Everything wuu isku dhex qasan yahay. Kaagiya hagaajin la adahay. Ani kayga hagaajisanaya why hostage oo ugu jiray gadaal u soo noqoni when soddonki sano la soo dhaafay kaaga hagaajin la adahay. I don't even see that clear future that wax noo jeexi kartid. Maybe fix kaaga anina kayga aan sii wato and then isku imaana hadhow or itus economic kayga ka fiican build centralized government oo adag oo unionka Soomaaliya wadato 4.5 meesha ka baxsan incompetent leaders oo dadka dili jira dadka Arsenal ka mid ahaa haddana la siinayo boosas fiican and then all of a sudden Somaliland afarta ku fiiqaysa give me a break like you can't play morality game markaas oo kaleeto I totally get dadka Soomaalida oo daacad iyo Somali unitygooda rabaan oo gooni istaagan Somaliland way u baxaysaa oo dadkaas u raacaysaa I totally get it like is a valid point for dadkaas right unity Somalinimo rabaan but dadka waxay hilmaamoyn waxa waaye dadkii wadanka raangareynaya is incompetent maybe dadkaas ayaga they should run office oo wadanka inay tagaan waxa hagaajiyaan markaas Somaliland waa soo celin kartaa daawadaya war waxaan caawidin hayna waan nagayntaa tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan subscribe like share comment please baalki korbo meedan qaadan kor u qaado salaamaya habeen wanaagsan bye